kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno siyaasi xildhibaan hore Cabdi Bare Yuusuf Jibriil kaasi oo dhinacyo badan taabanaya gooreen ku soo dhawo siyaasi Cabdi Bare Jibriil maanta TV iyo wareysigan gaarka ah oo aan kula yeelanayno aad iyo aad mahadsantahay dhaw su'aalo dhowr ah halkan isku weydiin doonaa gooreen su'aasha ugu horeeya ee aan rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay shacabka Muqdisho waxaa soo wajahay muddooyinkii ugu dambeeyay caqabado xoogan kuwaas oo la xiriira xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho walow la sii kordhinayo wadooyinka muhiimka ah la sii xirayo bal xilligan maxaa kaga aadan shacabka Muqdisho xirnaanshaha wadooyinka maxay dawladda xilligan ku xaqiijin kartaa ammaanka maadaama iyagoo wadooyinka xiran ay dhacayaan falalidii ku ammaanka caasimadda bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad u mahadsantihiin horta arrinta hadda su'aasha aad weydiisay waa dhaxalkii laga dhaxlay 8 February 2017 dhaxalkii shacabkiisa loo kadeedo oo dhagxaan iyo ciid amni looga dhigayo horta waxa is weydiin mudan dalku ma lahan miyaa ciidan dalku ma lahan miyaa qaab kale amni loo sugo dalku ma lahan miyaa saraakiil aqli leh oo maskax leh oo aqligu shaqeeyo yiraahdo war madaxweyne dalku saatan sharaf uma ahan in dad la miyaan la arag marka waxa weeye waa dhibaato badan shacabkaana waa shacab maaragtay dhibaato badan soo daalisay dhowr iyo 20 sano burbur iyo dhibaato la soo kulmay amniga in la sugo waa muhiim cid amniga ka hor iman karta male amnigu qof kasto dan u yahay mid caawa dhashay mid ka 90 jirka dambi u yahay wataa sidee loo gudbi karaa caqabadaha hortaagna xilligan ee shacabka caasimadda taasi oo ku wajahan xirnaanshaha wadooyinka marka waxa loo gudbi karaa aqliga iyo maskaxda markuu shaqeeyo oo ku shaqeeyo dad aqoon u leh way araga oo u maaragtay amniga sida loo soo yaqaan ciidanka kasban kara horta in la keeno waad aragteen saraakiishii aqliga iyo maskaxda iyo way aragnimada dalka waa dhooban yihiin waxaad moodaa waxaas oo dhan in gees laga maray oo la baal maraad moodaa inta dawlad lagu maamulayo saaxiib waa isoo loo bangareeyay muxuu ahaa xisbiga islaanahay inta dal saa lagu maamulayo dawladnimo taas hore mar lagu gaari maayo midda meesha ka maqan waaye aragnimada ka maqan waxaa meesha ka maqan ixtiraamkii shacabkan canshuurta ka qaadaysan baa meesha ka maqan marka waxaan leeyahay wax badan waa ricaawana waa ku cilnaya war amnigu waa muhiim in la sugo laakiin wadada loo maray oo hadda dalka lagu maamulayo ma ahan qaab amni loo sugo waa qaab shacabkii lagu kicinayo shacabkii la dhibaateynayo shacabkii la kicinayo waxaad moodaa nimankan mas'uuliyiinta ah oo hadda dalka gargudeenka waa madaxda ka ah in la yiri war Soomaaliya burburkii wixii ka haray kadeeda oo dhibaateeyo oo kiciyo oo maaragtay dagaal isku dib u abaabula taas aad moodaa wadada inay hayaan waa tahay su'aasha xigtay aan ku weydiinayo waxay tahay maxay dawladda xilligan kaga aadan qorshe noocaya maadaama laga dareemayo Muqdisho shacabkana ay hadal hayaan in laga yaabo in dagaal u dhex maro senator Muuse Suude iyo Laxoogi sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ama dawladda Soomaaliya baan dhahnay maadaama duqa Muqdisho uu amar ka soo saaray dhulka xaafadda Mirinaayo ee uu degan yahay senatorka bal waxa jira isxulufaysi badan iyo sidoo kale abaabul ciidan oo Muqdisho gudaheeda ah horta gudoomiyaha gobolku mid xaq buu u leeyahay midna xaq uma lahan wuxuu xaq u leeyahay dhulku nooc doona ha ahaado dhulku waa dhul dawladeed ha ahaado hadii la amri inuu yiraahdo waxaan dhulkan in laga kacaan raba warqad qoro xaq buu u leeyahay hadii la diido adeer gudoomiyuhu xaq u mari inuu dad u hanjabo u caga jugleeyo madaxweyne ma ahan waxaad moodaa nin shaqadiisii ka tagay waxaad moodaa inuu u guntaday afayeenkii madaxweyne inuu u guntaday shaqadiisii oo banaanka ka maray midda Muuse Suude ka baxalayada ma xuma dhulkii kale dawladdu aawaye armo maanta xirada gantaalaho tagi kara armo xiradii 77 tagi kara armo muxuu ahaa daynila tagi kara laakiin siyaasi Soomo waana in loo hogaansamo ama weerarta dawladda maadaama ay ku bilaabatay isaga kuwa kalena way xigi karaan soo isma dhigi karno adeer marka adigu sharciga ilaalisid oo shacabka ay tixgeliso oo sharciga adigu ilaalisid ba sharciga loo hogaansamaya maxaa Muuse Kuuri meeshan keenay safaaradan siinaya iyo cadawban siinaya ka guur macnaheedu maxay tahay safaaradna xeeb lama siiyo waxa ka reeban safaarad iyo dhulbadeed in safaarad la siiyo waa horta ka reeban tahay laakiin dalalka la leeyahay waa la siinaya waa Qatar waa Ethiopia waa Eritrea cadawgii Soomaaliya oo baabiinayaan xeebtaydi siinaya haday rabaan sunbay ku shubahayaan haday rabaan sunbay ku duugayaan maraakiib uga soo dagaysa muwaadin Soomaali waa kicinaya
adeer taas laguma yiraahdo muxuu ahaa maxaa loo diiday safaaradu dhulka ay leeyihiin hadda safaarad nin walba safaarad buu lahaan jiray safaaradiisa ha dhisto ha aado xeebahan kuwa hadda degan macaa turki macaa imaaraadka ka guuriyay nin walba xeebtiisa safaaradiisa aado laakiin dhulkaygii baan wax cadowga dejinayaa wixii doona ha lagu sameeyo taas nina ma qaadan karo waana nidaamka iyo dawlad darrada iyo hoggaan xumada dalka maanta lagala dhaxlay ma ahan hanjabaad qofka in loo hanjabo Soomaaliya xilli isku hanjabo lama gaarin war marka hore Muuse wixii ka horeeyay Muuse dhul buu haystaa warqad madaxweyne haystaa dhul aan muxuu ahaa madaxweyne bixin baa jira oo xoog lagu haysto taa ka soo bilaabo kuwa ka horeeya ka soo bilaabo hanjabaad baan hanjabahayaa taas adar xilli maanta la soo jeedo Soomaaliya lama joogo Soomaaliya waxay u baahan tahay maanta waa ururis waa ilmo gurgurin isu keenayo taas in laga ambaqada fiican maanta qaboweyne iyo kibir iyo ana waxaan doona sameynaya Soomaaliya waa ka dhamaatay taas waa tahay dhinaca kale shacabka Muqdisho iyo guud ahaan dalka shacabka Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan si weyn su'aal horta la shacabka ay u noqotay oo jawaab ay ilaahay haatan u laayihiin haddii lagu tilmaamay xildhibaanadii golaha shacabka inay yihiin xubno ka tirsan al-shabaab oo ku matalo golaha shacabka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ma xildhibaanadii shacabka matalaya ayaa doortay mise shabaab doortay waa su'aal si weyn ay shacabka u hadalhayaan horta waa run su'aasha ugu horta waa midaas weeye su'aasha isweydiin leh war maanta haddii baarlamaanka shabaab lagu tilmaamay oo ilaa hadda maaxi dalku raali gelin ka bixin weyday oo ka hadli weyday madaxweynaha nimanka wiilashii waa doortay su'aashaas waa midda meesha taala maanta tan arinta maanta baarlamaanka dhexday hadaan wax laga qaban berri waxa ku xigta madaxweynaha laftigiisu inuu yiraahdo iska daa baarlamaane shacabka Soomaaliyeed oo dhan khaasatan shacabka Muqdisho degan gabigooda wada shaab inuu yiraahdo waxba lama ahan waana oranaya wadada ku socdaan marka waa niman ayagu isu haysta hadalka ay ku hadlayaan qiimo aan u lahayn maaragtay daamishku u geysan aan u lahayn kaliya ka adag dad qof kale wax isaga celin kartid shabaab qof ku shaabade Ethiopia waxaan arki jiray waagii hore dawladii kacaanku aan burburina waxa la oran jiray ninkaanu si aad barro u shaqeeyo ama xaalad waa dili jirtay ka bacdi burburkii baa dhacay waxa dhacay urur liyaad al-ittihad Ethiopia markaad waxa oran jiray al-ittihad baa lagu xiri jiray hadda Ethiopia dadku waxa lagu cabsiyaa shabaab waa shabaab ilma adeer yihiin shabaab ka soo dagaalamay hadda nimankaanu kaar waxay ku xoqdeen koow waxay ka soo bilaabeen meesha qofkii yiraahdo waxaana qaldan waxay oran jireen muxuu ahaa waa qaran dumis waa ka soo tageen media la istaageen qofkii waxba qaldan waa siyaasi xanaaqsan waa ka hadda shabaab bay marayaan waa tahay aan ka dhaxgalo midaas soo tageen waa run waxa la shaqeyn karaa qofku markuu talaada dhageysanayo qofku markuu ku hogaansay qofku markaad waxa u sheegto u dhageysanayo laakiin qof markaad u tagtid tiraahdo war waxaana khaldan tanaa dalku ku fiican colaad ku qaadaya adeer see loo sameeyaa nimankan waxa aanu ku matalay aan umada raba inaan u sheego waxaan ku matalay geed waxa jira xarwal waa la yiraahdo doorshaan la yiraahdo saxaradaas iyo qurunkaas ku koraayo inta duuduubo god la gala ilma kaga dhala haddaad wax udgoon ku buufisna meesha ku baqtinaya nimankan taasaan ku matalay haddaad wax wanaagsan u sheegtid tala wanaagsan haddaa u sheegtid dalkan horumarkiisa u sheegtid adeer colaad bay kugu qaadahayaan dagaal bay kugu qaadahayaan dacayd bay kugu samaynayaan laakiin haddaad tirahdo waa fiican tihiin madaxweynuhu waa fiican yahay ra'iisul wasaaruhu waa fiican yihiin dadka fiican Soomaaliya ma soo marin waxaa lagu arkayaa inaad tahay nin qaran dumisa nin xanaaqsan nin shabaab baa lagu arkayaa waxyaabaha hadda socda marka ka qoonsanay marka ka qoonsanay waa inuu media wax walba u marsiinaa waa tahay taasi halkaas aan kaga gudbinaa majaladaha qaar ka soo baxa dalka Mareykanka waxay daabacayaan in xilligan mushaaraadka ama dhaqaalaha laga bixiyo magaalada Muqdisho ay ku shaqeeyaan xubnaha mas'uuliyiinta ee dawladda ka tirsan uu aad u badan yahay marka loo eego mushaaraadkii dakhliga ku baxa Somaliland balse xaaladda amni iyo dhinac walba marka la eego Somaliland ay ku wanaagsan tahay waxayna taasi qayb ka tahay waxyaabaha ra'iisul wasaaraha lagu weydiin doono Washington sida majaladuhu ay leeyihiin bal adi ahaan siyaasi ahaan marka aad eegto cabirtana fikradaada sidee bay u muuqataa xaaladda Somaliland iyo Soomaaliya marka loo eego kaabayaasha dhaqaale korukacooda iyo sidoo kale xaaladooda amni marka laga jaan qaado xaaladda hogaamiyaashooda adeer Somaliland waxa weeye waa maamul asagu u diyaar garoobay qadiyad u diyaar garoobay waa maamul Soomaaliya ka go'ayna marka waxay adduunka ka gadayaan in dhaqaalahooda xakameeyaan
musuq maasuqooda la dagaalamaan amnigooda boqolkiiba boqol sugaan haddii ninku markuu dan leeyahay dan kastoo samaynaya taasna wax lagu ammaanay weeye inkastoo haddii aan lagu ammaanin kala go-a Soomaaliya aan lagu ammaanin laakiin nimankan madaxda dalka jooga anigu waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed inta wax garanaysa aaminsan tahay hogaankii dalka ugu xumaa oo taariikhda Soomaaliya soo maray inay yihiin hogaankii ugu faanka badnaa oo ugu fadeedka badnaa horta inay yihiin taan walba waa ogyahay waxaan ugu wacan wax walba inay hoos u dhac u waxeeyaan waxa weeye wax walba fadeed baa dhaafinaya wax walba hadal xumaa dhaafinaysa waad ogeydeen bisha 6 ra'iisul wasaaruhu inta miidiya yimid 100 milyan baanu bixin inuu yiri waa been waxba kama jiraan iska daa wax kale baarlamaankii sagaalaad mushaaraadkiisii 6 bilood oo lahaa xataa miisaanadii 17 oo hadda lagu daray bay diiday inay baxshaan oo isticmaaleen oo hotel ku baxshaan oo dadka ku baxshaan marka waa dadka noocaas been cid uma dhageysan karto aan ka dhaxgalo waa kuma dadka lagu bixinayo qarashaadka loogu talagalay baarlamaankii sagaalaad ma ahan dhammaan dadka si baarlamaankii sagaalaad ha ahaado shaqaalihi ha ahaado ciidamadii ha ahaado ganacsatadii shalay dacwoonaysay ha ahaato dhaqaalihii meesha iyaga la siin lahaa waxa lagu kubciyaa koow waxa la yiraahdaa media bay ku fangareeyaan in lagu faanayo waxay ku fangareeyaan facebookyada in xayeysiin loo sameeyo oo sawirada la soo rijiyo madaxweynuhu waa fiican yahay ra'iisul wasaaruhu waa fiican yahay qofkii wax ka sheegana su'aal caayo ay ku caayaan waa labo hoteelada xamar iyo guryaha maaragtay culimadii hadli jirtay maaragtay xasan sheekh sa ugu dhaganaan jirtay maaragtay meesha ku dambeeyay hoteelada la seexiyay shilimaad baa la siiyay diintoodii waa gateen meel bay aamuseen siyaasiyiintii sidoo kaleeto malaayiin baa guryo hoteelo wada degan waxay ka wada cararayaan see hebel yaan waxna la ka sheegin hana la faaniyo halkaas kharashka lagu bixinaya meeshii ciidamada la daryeeli lahaa meeshii wadankan biyo nadiif loo sameyn lahaa meeshii maaragtay caafimaad lacag la'aan loo sameyn lahaa meeshii iskoolaad waxbarasho loo sameyn lahaa wadooyinka aragtay iyo maaragtay buska iyo dhibaatada lagu dhisi lahaa dalkaas lagu naasnuujiya marka waxaad moodaa nimankan in loo soo diray oo la yiri Soomaaliya gabigeeda waxabaala magac xun u sameeya taas intaas ku filan tahay qabi ugu dambeeyaan isla soo gaarnay maxaa haboon xilligan oo la gudboon madaxda dalka waxa la gudboon aqliga iyo maskaxda inuu shaqeeyo haddii aqliga iyo maskaxdu uusan shaqeynayn oo labadaas sano wadadii qalloocneyd iyo faankii iyo fudaydkii iyo hebel iga fogay iyo hebel baa fiirshay iyo siyaasi xanaaqsan iyo kan waa shabaab iyo waa qarandumis wali ay taagan yihiin dhaxalka 8 February 2020 laga dhaxlay waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan meelii u marsiinayaa Soomaaliya waa ku fashilantay madaxweyne inta ka badan Soomaaliya ma hogaamin kartid Soomaaliya meel fog ha geynine adoo maanta tagaan sharaf iscasil waxbaan qaban waayay hadalkaaga shala ka dhabe waa ka dhaben weydi oo lahayd muxuu ahaa gaari wadooyinka la xiraya waa xaraan shacabka ma caburinayo oo xasan sheekh aad ku canaanaysay oo aad ku martay oo aad lahayd guryahan u dhisay hantidii burburtay malaayiin baa burburtay hantiyaha burburtay malaayiin qof baa la dhibaateeyay waxa la caburinayo dadkii baad caburto guryaha ugu dhacaysa wadooyinkii baad xirto baabiisay maadaama ballanqaadkaaga uu been noqday oo boqolkiiba boqol been noqday madaxweyne iscasil tala kale meesha matal hadaa talada qaadanay ama talada siyaasiyiinta dhageyso talada wanaagsan qaado dadka beenta ku sheegay xayeysiinta waa ku jecel yihiin dadkii ummadii waa ku jeceshahay madaxweyne ka fiican lama arag lagu seexinayo intaas qarax ban maanta soo qabanay intaas hubaan soo saarnay beenta lagu seexinayo ha dhageysanin taa hadaa dhageysidna waa ku baaba'aysaa hadaa taa dhageysanaysidna iscasil baan kulay anu intaasan ku soo gabagabeynayay gudaan daawadayaal wareysiga gaarka ayaan la yeelanaynay siyaasi liban hore Cabdi Yuusuf Bare Jibriil ayaan halkaas ku soo afmeereynaa ama santa siyaasi idinka mudan ama santa كاميرا عبد الرحمن مانا كاميرا عبد الرحمن شيء هذا شيء كاميرا عبد الرحمن سنتين اوكي صحيح هذا مركز صحيح سلا ولا لو guud ahaan wareysigii gaarka ah ayaan la yeelanaynay siyaasi hore Cabdi Bare Yuusuf Jibriil waa nagaynta kaamirada iyo farsamada waxaa hagaajinaya Cabdiraxmaan Xasan Tahliil anigu Sidaam Socdaal ayaan ahaa oo ma santahay idinka mudan aad iyo